soo noqod wanaagsan daawadayaal goobta lagu talagalay xuska 18 May halkaas ay soo buux dhaafeen dad aad tiro badan bal waxa la dhex qaadi doonaa weydiidona dareenkooda mikrofoonka isla socod wanaagsan gudaha iyo dibadda ayaan hambalyo u diraya waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan guud gaar ahaan reer Togdheer waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan gaar ahaan reer Burco nabaday daawadayaal halka nagala socotaan waa labada YouTube ee Xafsa iyo Xulashada iyo Yool TV walaaba kala socotaan barnaamij xiiso leh hadaba maanta waxaynu ku guda jirnaa maalinta weyn ee qaaliga ah ee xuska 18 May ay ka soo wareegtay 30 sano hadaba maalintan si weyn ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer looga dabaaldegaya maanta halkan waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco waxa ku sugan ciidamada qaranka ee kala duwan dhammaan shacabka jaamacadaha gobolka iyo iskuulada gobolkaba maanta Burco waxa ay muujinaysaa dareen aad u baaxad weyn maadaama ay maalintan qaali ay tahay hadaba daawadayaal waxa nagala socon doontaan baraha aan ku leenahay social media ee Yool TV iyo Xafsa iyo Xulashada aad u mahadsantiin oo kugu soo dhaweynaa barnaamijka Xafsa iyo Xulashada balado walaal dareenkaaga cabiraya walaal waan dhawahay dareenkayga wallahi aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta shucuurteeda lama soo koobi karo maadaama ay maanta joogno xuska sanad guurada 18 May xorriyadda Soomaaliland ma garanaysaa maalin ugu weyn weeyaan ma garanaysaa marka aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaan leenahay kanaxo nafta waadi ku soo dhaweynaya bal dareenkaaga maanta aad cabiraya wallahi maanta dareenkaygu aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan joognaa maalin qarnimada Soomaaliland ku weyn shacbiga reer Soomaaliland waa maalintii ay dhimeygo maalintii Soomaaliland xornimada la soo noqotay maanta maalin aan dareenkayga aan lama cabiri karo shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ku nool waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak kul caam wa antum bil khair bal walaal waxaad ka warantaa ay dhimeydan waxaad ka duwantay waxyaalo badan bay kaga duwantaa waxyaalo badan bay kaga duwantaa ta garoonka weyn la laga ciyaarayo maanta soo baxayaan ma garanaysaa ciidamaduna ku soo marwaayay rusheynayna insha Allah soo maraante kuwaasan meesha u nimaanagu oo ku soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa maanta dareenka ka waran wallahi dareenka aad iyo aad u kacsiin maanta waa tahay 18 May maanta ay ka soo noqonay xilliga ka soo noqonay ka aad iyo aad u dareenka u kacsiin ya shacabka Soomaaliland wada tahay doorta maanta waxaan ku aad iyo aad ya garoonka diyaarada ka bixisay kowdi doorkii hore waxaan ku deemo jirman ma yahay soo kowdi maanta wada tahay doorka aad iyo aad u kacsan ka xalay shucuurta Soomaaliland aad iyo aad baan leeyahay inta bakaqa aysa oo ku soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa ay dhimeydan hore maxay kaga duwantay wallahi wax badan bay kaga duwan tahay dadkii aad iyo aad isku soo baxay shucuurtoodan soo koobi karin kulli markaan aan dareenkayga ka hadlo maanta shucuurtay wallahi boqolkiiba boqolaad bay sareysaa de qof kasta Soomaaliland joogan aad iyo aad doon salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hamaliyan le waa ku soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa ay dhimeydan hore maxay kaga duwantay wallahi aad iyo aad bal loo soo baxay dadku aad iyo aad wada arkaysaadba in badan loo dabaaldegay in loo dabaaldegay waa dhimay aad u qaaliyo weey marka waxa la guul Soomaaliland soo dhaweynaya walaalo adoo dareenkaaga bal cabiraya wallahi kale dareenkayga aad iyo aad u balaaran yahay maanta kale maalinkii maxay jiray dhimigeeda qarannimada dalka maanta waxaan la dabaaldegaya kooxdeydii iyo ciyaar xaafadkaygii igu weynaade iyo waxaan igu weynaa kooxdeydii deefslo dhamaanto la dabaaldegay waxaan leeyahay dadku meel kasta joogaan waxaad ma ciyaaraha maasanta walaalo oo ku soo dhaweynaya walaalo bal dareenkaaga adoo ka hadlaya dareenkayga wallahi maanta waa dareen wanaagsan dadka iyo dawladda iyo waxaan ku wuri dalkeena Soomaaliland aad baan u salaamaya maanta wallahi waa maalin farxad leh maalin ay la mid tahay kala Soomaaliland ha noolaataan u leenahay ha guulaysato dalka dadka oo salaamayna walaal Soomaaliland ha guulaysato guul maanta waa maalin farxad leh calankeena taageertan yahay calankeena inuu taageersanahay ha noolaataan u leenahay Soomaaliland ayaa doon salaamay oo ku soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa ay dhimeydan hore maxay kaga duwantay bismillaahir rahmaanir rahiim horta ugu horreyn ilaahay baa mahadle oo bashuusha buraqeen ugu gaarsiiyay maalinta boqorna bilan ugu horreyn halka waxaan ka salaamay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
iyo ciidanka kala duwan qaranka iyo xaasiskooda meel kasta jooga waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa ay noo gaarsiiyo bashush iyo barwaaqo wala su'aashaada haddaan soo noqdo Edhiin waxay kaga duwan tahay Edhiin hore waxa jirta afar rabadaan hore inaga gashay Edhiin marka waxaan oran karnaa abaabulkoodu ku xogay xukuumadda hore silaayo iyo iminka diyaar garowgan tan maanta boqolkiiba boqol si fiican baa oran karaa oo kuwii hore inagu gaaxday marka godolkeedu 5 Edhiin tan maanta inaga dhigan saasaan oran karaa ilaahay tawfiiq ku soo dhaweynaya walaalo bal dareenkaaga dacbirey maanta wallahi dareenkayga ma soo koobi karo walaalo waxaan joogaa garoonka weynaaye Burco waxay tole dadweynaha aad arkaysa balaaran baa xad isku yimi wallahi ma sha Allah Edhiin hore maxay kaga duwan tahay wallahi aad bay u wanaagsantahay Edhiin hore waxay kaga duwan tahay dadkan faraha badan la soo baxay ma arki jiray hore ku soo dhaweynaya dareenkaaga cabiraya ma sha Allah maanta shucuurtayda dareenkayga aad u kacsan waxaan ku faraxsanahay maalinta gool isku taagga Soomaaliland ya marka dhamaan waxaan ciid mubaarak shacabka Soomaaliland oo dhammaan kasta joogaan anigoo jooga gobolka ragga ee laga dhawaaqay Soomaaliland ku soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa Edhiin hore maxay kaga duwan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan ku salaamayaa TV-ga magacii TV ma aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan oo sanad guuradii 13aad 18 May maalintii aynu xornimadeeda dib u soo noqonnay 1999 kii Burco laga dhawaaqay farxad weyn bay tahay maanta inaan Burco aan ka xuso oo aan joogo dhammaan ummadda reer Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa ugu horeeya madaxweynaha qaranka xukuumadda Soomaaliland meel ay joogaanba sayaan haddii walaaladu wadiisay waxay kaga duwan tahay sanadkan waa sanad jaanis leh waa sanadkii ugu dambeeyay imika xukuumaddan ay Muuse Bixin ay xusto marka aad iyo aad baa loo abaabulay shacabkuna dareenkooda aad iyo aad bay soo xuleen aad baan ku salaamay salaam alaykum waa ku soo dhaweynaya maama bal dareenkaaga dacbiraya maama waa dhow aad iyo aad baan dareenkay ku fiican yahay aad iyo aadna waan maxaa isleedahay Edhiin hore maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay horta mar walba anaga waa noo farxad Edhiin kasta farxad baan maxay tahay waa noo farxad waxay kaga duwan tahay aad iyo aad baa dadku lubisan yahay shuruucdooda aad bay u kacsan tahay aad iyo aad baan u qaliyeynaa قايد فريش هلا لو انقبل المدلة هلا عديات غني ku soo dhaweynaya adeero maxaa isleedahay Edhiin hore kaga duwan tahay بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Somaliland waxay la soo noqotay guuleysataageedii 1990 ilaa intii ka dambeysay hore ayay u socotay wayna soconaysaa haddii ilaahadan ka dhow ilaa ictiraaf xagaheeda isugu taagto waqtigii hore ka lumay way ka soo kabanaysaa maanta waa arkaysaan Edhiin May way 31 jirsatay ilmuhuna hadduu dhasho oo gurgura soo bilaabo oo socod soo bilaabo oo uu qaan gaadho dawuu howlgala waxaa weeye Somaliland waxaan ku salaamayaa ummadda Somaliland meel ay joogto dibad iyo gudo maalintan maanta oo Edhiin May in ay nabad ku ciidaan waxaan salaamayaa madaxda qaranka oo madaxweynuhu horeeyo iyo inta ka soo hooseysa ayaan salaan u dirayaa waxaan u dirayaa Somaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Togdheer oo